السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال halka aad naga daawanaysaan waa beejidka diiniga ah oo aalaab aad uga barataan inay idin soo gudbiyaan waxyaabaha qeyriga ah. beejidka sida qaaska aad naga daawanaysaan waa shabakatul mutaxaabuuna fillah, hoyga diinta TV iyo majmucul khayr TV. galabta waxa barnaamijka noogu marti ah caalimkeen weyn Sheekh Maxamuud oo Cabdulla Cariif oo arabno inaad dhowr su'aalood aan weydiino oo dadka bulshada ah oo ku xiran beejidka ay soo weydiiyeen. Sheekh Maxamuud ku soo dhawaw marka hore beejidka diiniga ah. bismillahir rahmaanir rahiim. alxamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin sayidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmaciin. beejidka diiniga oo diinta ka shaqeeya waa ku dhawahay insha Allah ta'ala ilaahayna hanaga aqbalo waxaan qabanayno. Sheekh Maxamuud guud ahaan dalka waxaa ku soo badanaya bulshada isticmaalaysa sunta dadka disha. inta badan waxaan social media ka aragnaa dad la leeyahay sun bay caabeen oo waxa ugu badan meelaha laga soo sheegayo oo sunta laga caawo waxa waaye magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. sidoo kale deegaanada qaar ee Soomaalida ka tirsan waxa laga soo sheegayay goobo dadka lagu sameeyo. shareecada islaamka maxay ka qabtaa sunta qofka isaga uu cabo iyo dadka waxa waaye qofka kale sameeyo. bismillahir rahmaanir rahiim. su'aashaas hadaan maartay u soo laabano oo aanu ka jawaabno waxaan wax uga dhahayno waa sida Ilaahay iyo rasuulkiisu ay ka yiraahdeen ayaan uga jawaabaynaa. الله سبحانه وتعالى وحيري ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نفتينا هدلينا أيها الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وإذين حريص بدن هاي مركا قفكي نفتي سدلا نفته حي قفك كل هذا أمانة أمانة إلهي وديبوي نفط هذا أمانة إلهي كوديبوي haddii marka naftii amaanadii Ilaahay ku dhiibay hadda aad dayacdo oo aad naftii aad disho hadii saxiixa waxa soo arooray qofkii maartay naftiisa bir ku dila ama maartay sun ku dila sida hadda dhacayso ii sheegaysiin maalinta qiyaamo ayaa la soo bixinayaa asagoo birtii gacanta ku haysta ama sunti oo sunti mar walba cabaaya ama maartay birtii isku dilaaya naarta dhexdeeda ayuuna maartay asaasuu ku noqonayaa. qofku hadduu banayso si camdiya u sameeyo inuu sun cabo ama soo isdilo waa gaaloobayaa, waa lagu kufrinayaa. marka hadduu qofku kufriyo hadde maalinta qiyaamo cadaabkiisa waxaa laga dhigayaa oo kamida cadaabkiisa in saacad walba mar walba sunti uu cabo ee lagu kalifo iyo in maartay birti uu isku dilay lagu kalifo mar walba inuu isku dilo sidaas maartay cadaabkiisa ay kamid noqoto ilaa abadul abad ayuu saas noqonayaa. marka qofka muslimka ah waxyaabaha waxa weeye islaamnimada looga bixi karay kamid tahay inuu qofku naftiisa dilo. qofta naftiisa inuu dilo xaraam weeye. dadka waxyaabaha sameeynaayo hawada adduunyada ina qaaday ama la leeyahay gabara nin jeclaatay ama qof maartay qof cadaawo u qabo ayaa dilaaya. hada qofkii maartay qof dila waman yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أيوه إلهي سبحانه وتعالى. آيات اسمارتيا إنتان كأهين عبد الله ابن عباس وعير هذين مارتيا وكبائر أصيا شيء لو قالوا بمايو. لكن ابن عباس هو حبر عالم الأمة وهو كتجي قف مارتيا قف مؤمن الدله السجو سي عمدي أيتا إن آيات وحلة تأويلاي أي سنجرين oo qofkaas waxa weeye sidaas markaas oo ku dhimanayo ku tagaayo. marka waxa weeye maartay dadka waxyaabaha sameeynaya waa inay ka digtoonaadaan, waa inay Rabbi ka baqaan. waxa weeye waxa saay qabsada nafta isdhaafinaya waxyaabo laga sheegay reer galbeedkan iyo dadka gaalada ayaa lagu sheegi jiray arintaas. hada dadkaas dad diin lama ahan. hadii annaguna aan ku daayano dadkan diinta lahayn kamida noqonaynaa. رسولك عليه الصلاة والسلام هو من تشبه بقوم فهو منهم. قفك ضد اسكو شبه كميدو نقونيا هذا وحاس وحاسة ما يجرن مغلي جرنا قال هذا سميس
hadda waxa weeye annagina haddaan ficilkoodii raacno waxa weeye ka mid aan noqonaynaa dadku xaawaye aadam ayaa dhalay waxaa lagu kala duwan yahay islaamnimadaas iyo diintaas weeye haddii diintii lagu camal fali waayo wax la isdhaama ma jirto marka dadka muslimiinta waxyaabahaas ha loogaga digo mas-uuliyadna ha la iska saaro oo waxyaabahaas la samaynaayo qofkii qof saas ku dilana hadda waxa weeye asagana wixii baa lagu dilayaa horta qofkii sun wax ku dila waxa weeye seefaa qoorta looga goynayaa qofkii xabad wax ku dila xabadiyaa lagu dilayaa dadka waxa weeye dadka dilaaya waa in la qisaaso haddii la doonayo dadku inay noolaadaan maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyahay suuratulbaqara walakum filqisaasi xayaatun yaa ulil albaabi ul ilaahi qisaaska waxaa idinkugu sugan qofku wax u geysta in loo geysto nolol baa idinkugu sugan laakiin ilaahay oo dhan yaa ulil albaab dadka cuquusha caqli saliima dadka iska leh ayaa laga doonayaa inaan sida xayawaanka iska noqonno oo qof walba waxuu rabo iska sameeyo waxay ka mid tahay maaragtay jahliga soo badanaya iyo diintii oo laga sii fogaanayo ayay ka mid tahay arrintaas waa laga digayaa ilaahay rasuulkiisa hore nooga digay culimmaduna waxa weeye waa ay ka digaysaa arrintaas waa in laga fogaado waa in waddanka islaax laga sameeyo arrimaha noocaasa dadka wanaagsanoo muslixiinta ama dadka mas-uuliyadda sheeganaya waa inay mas-uuliyadooda qaataan oo ay ka hor tagaana loo baahan yahay taas ayaana maaragtay aan akidayna annaguna sheekh maxamuud aad ayaa u mahadsan tahay waxaa laga yaabaa inta badan inayna daawan doonaan dadka ka badbaaday dadka sunta cabaaya kuwaas oo sunta u caba in ay jecel yihiin qof kale ama loo diiday ugu dambayntii maxaa ugu baaqaysaa bulshadaas ku dhaqmaysa in ay sunta cabaan ama rajaynaya in ay dad siiyaan bismillahi raxmaan raxiim horta masaa'ibtaas waa masaa'ib allah naga koriyo wax badanna waa ay keenaysaa ilaahay wuxuu yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabad aydiikum waa masaa'ib maaragtay ka jirta dalkeenna hadde ilaahayna nama dulmin subxaanahu wa tacaala ilaahay dulmi waa ka nasahan yahay waxa idinku dhaca oo musiibaahw dha ilaahay sabab waxaa idinku kasbateen weeye marka dadka soomaaliyeed ee maaragtay waxaa samayhaaya ee ka dhiganaya inay wax caqliya ay yihiin ama ay yihiin wax maaragtay adduunka ku cusub oo ay maaragtay doonayaan inay ama social mediaha geliyaan ama wacdara ay ku dhigaan waxaasu wax lagu ciyaari kara maahan wax naar lagu gelaayo weeye wax jahanamo loogu socdo weeye wax musiibaa weeye dadkii ficilka dadka ku samayhaane ha ka daayaano kuwa ayagu naftooda ku samayhaayana ha ka daayaano haddii kale waxa weeye qiyaamadii ma dheera mar dhowna waa la isxisaabayaa rag saxaabada ka mida aan jeclahay inuu yahay sayidina cumar binkhadaab wuxuu dhahay iyo sayid cali midood annaasu niyaamun fa idaa maatuu intabahuu dadku way hurdaayaan laakiin markay dhintaan ay soo baraarugayaan baraarugidda wakhtigaas iyana waxba tari mayso maanta meeshaan daarulcamalaa la yidhaah qiyaamana daaruljasaa weeye ilaahay jasihiisa qiyaamada ayuu u dhigay dadkan dembiga ay leeyihiin qiyaamo ayaa lagu jaasi doonaa meeshaana camalka waxaa weeye ama camal xasana iyo camal sayi'ah labadaas ayaa lagu sameeyaa abaalmarintooduna waa cindallaahi maalintaas qiyaamaha ilaahay u sameeyey yaa lagu kasoomin xayaatada tan walaa yaqurannakum billaahi alqaruurow dha ilaahay falaa taqurannakum alxayaatu dunyaa walaa yaqurannakum billaahi alqaruurow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala xayaatadan adduunyaha ku kasoomina shayddaanka kedada badanna yowsa idinkadinow dhahay maalinta qiyaamo weydinka biri noqonayaa marka dadkaas soomaaliyeed ee waxaas hore u sameeyey iyo kuwa hadda samaynaaya iyo kuwa ku tala jira oo dhallinyaradu ugu badan tahay waxyaabaha noocaasay iska daayaano iyo adduunyada ay saas isaga dhigaayaan haddii kale khasaare ayaa ka imaanaysa insha allahu tacaalana waxaana rajay doonaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala qowlkan ilaahay aqbali doono oo dadkeennu iyo dadkeennu ay wax fahmi doonaan shareecadooda ay ku camal fali doonaan saasaan rajaynaynaa ilaahayna sidaa ha ka dhigo haadaa wabilaahi tawfiiq aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa sheekheena sheekh maxamuud oo cabdulla cariif halkaas waxaan ku soo gunaanadaynaa waraysigeena koobnaa oo ku saabsanaa dhibaatada ay leedahay dadka isticmaala sunta ama qof kale ku dila weli halka aad naga daawanaysaan waa beejidka diiniga ah oo aan kor ku soo xusnay waa anigoo ah saadam cabdulla siyaad oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekh maxamuud aad ayaa u mahadsantahay